السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقييمك بدن كسر دواد مقال عصوبة ولكن نافع عسكا كسر دواد الجنال كنا سبسكرايب صار الجنال وشر جري صاحبك يجعل إن وحكة فائدته برنامج كان ما أنت وحن كشرحنا MS Word كان habka lagu sameeyo receipt money ama invoice money warqad lacag qabasho ayaan ku sameeynaa marka insha Allah la soco hadda waxaan joognaa platformka MS Word ama Microsoft Word. Okay, home ayaa waxaad tagaysaa layout ayaa tagaysaa page layout marka tagto orientation ayaad ku dhufanaysaa landscape ka door marka hore portrait ayuu ka yahay sana effort warqad effort sana kugu soo muuqan doontaa markaad Word-kaaga furto orientation ta kadib landscape dooro kadib ka landscape doorato waxaad tagaysaa size markaad tagto letter iyo A4 waxa ma dooranaysaa waxaad dhigaysaa more paper sizes markaad dhahdo halkan ayuu ku keenayaa halkan waxaad ka dooranaysaa letter markaad doorato halkaas sare waxaad ka dhigaysaa 8.5 ayaad ka dhigaysaa halka hoosena height kan waxaad ka dhigaysaa only 4 ayaad ka dhigaysaa then margins ayaad tagaysaa markaad tagto margin 0.3 ga waxaad ka dhigaysaa 0.3 le ka dhigaysaa so ila soco meelaha 0.3 ka dhigayo all of them ka dhigo 0.3 okay marka 0.3 ka dhigato kadib waxa leedahay warqad san ayay noogu soo bixi doontaa reviewgeeda waa kana previewgeeda aan leeyahay so okay aan leedahay san ay warqad kugu soo baxday marka waxaan sameynaynaa halkan waxaan ku qoraynaa company-ga magaciisa okay waxaan ku qoraynaa halkan iska power supply. Okay meeshan hoose hadana enter ayaa leedahay waxaad ku qoraysaa email markaa qorto waxaad dhahaysaa email ayaad gashanaysaa @gmail.com waa contactiga meesha lagaga soo xiriiri lahaa halkan hoose waxaad gelinaysaa phone no then waxaad gelinaysaa numberka okay adiga waxaad doon degashanayso there's no problem heelad ayaa saaraysaa markaa heelad saarato right click ayaad ku dul leedahay waxaad tagaysaa paragraph meesha qoran ayaad tagaysaa markaad tagto meeshaan waxaad ka dhigaysaa 5 ayaad ka dhigaysaa intan single ayaad ka dhigaysaa meesha oo multiple ka then okay ayaa leedahay haddii oo aad doonayso inaad si fiican isku sii hoos geliso saddexda qoraal inta ayaad 0 ka dhigaysaa there's no problem 0 ayaad ka dhigaysaa si fiican ayay isku dhawaanayaan okay saana haboon saan ka dhigo kadib waxaa leedahay control L ayaad leedahay control R markaa dhahdo ama waxaad ka bedeli kartaa home ayaad tagaysaa halka inaad ka bedeli kartaa waa left center iyo right okay that's cool magacan ayaan weyneynaa markaan weyneeyo waa magaca shirkadda so waxaan ka dhigaa Algerian ayaan ka dhigaa markaan ka dhigo asikaliis gaduudaan ka dhigaa si uu qurxanaado so waa kan hadda waxaan sameynaynaa markaas shape yar ayaan soo qaadanaynaa adiga shape-kan oo kale soo qaado waxaan dhigaynaa halkan ayaan dhigaynaa shape-kan halkan ayaan dhigaynaa so ila soco step by step ula soco waxaan sameynayo fill ayaa tagaysaa asina gaduud ayaad ka dhigaysaa white ayaa ka dhigaysaa backgroundkiisa banaanka that's cool marka hadda waxaan sameynaynaa contactiga meesha nagala soo xiriiri lahaa okay meesha nagala soo xiriiri lahaa waxyaabahaas ayaan qoraynaa insha Allah ila soco waxa fahmi weysane ku cesho muuqaalka okay halkan waxaan ku qoraynaa Mr ama MR ayaan ku qoraynaa number waa numberka waxa lagu qoraa oo boonada okay enter ayaan leenahay
halkan waxaan dhehnaa received by ama received with waxaad doonta aad ku qoran kartaa received with no yaree farta received with thanks from waad ka tegaysaa space ayaa ku dhegaysaa waa soconee meeshaan ku joogso insha Allah la soco waad soconaysaa waxyar soo laabo halkan waxaan qoraynaa date laba dhibic ayaa u yeelaysaa okay enter ayaa leedahay meesha kale waxaa ku qoraysaa amount of tag lacagta laga qaaday amount of tag waa soconee scrap amount of tag lender ayaa horgelayo enter ayaa leedahay by cash ama by number ama by bank waxa looga qaaday lacagta ayaad inta ku sharxaysaa okay by cash ayaan qoraa space fiican bax okay box yar ayaan gelin doonaa meeshaas slash okay jikoe space bax haddana okay no ama number ala soo gaabiyey dhibic yar le u dhig bas okay soco marka wax yar space ku dhig ka space ku dhigta halkan waxaa ku qoraysaa bank markaad ku qorto soco datekaas haddana hoostiisa waxaa ku qoraysaa date that's cool enter ayaa leedahay markaad enter dhahdo waxaa qoraysaa for the purpose of lacagtan sababta lagu qaado ayaa halkan ku sharaxaysaa inta waxaa ku qoree for the purpose of space ba haddana bankiga hoostiisa waxaan ku qoraynaa contact haddana enter dheh ka enter dhahdo halkan tag ayaad ku qoraysaa tag markaa ku qorto inta ugu muhiimsan hadda waa qornay kadib waxaa tegaysaa insert ayaa tegaysaa insert markaa tagto home aan joogno marka hore insert ayaa tegaysaa markaa tagto shape iska dooro markaa ka doorto line-kan ayaa loo baahan yahay line-kan soo dalbo waxaad ku aadinaysaa received waxaad inoo soo dhaweysaa hadduu aragtaan okay marka hore waxaa qabanaysaa right click markaa shape soo doorto right click qabo kadib shift qabo si leenka oo straight line u noqdo line toosan okay date-ka ku ekaysiye agtiis markaa ku ekaysiiso another line noo soo dalab haddana date-ka waxaa ka qabanee agtiisa haddana okay right click qabo shift qabo up to here gay that's cool okay haddana shape kala soo dooro oo line-ki le ah isla asigi ah amount of tag ku aadi wadkan buuxi iska buuxi kule wax yar lagu qoraa there's no problem okay waxaa tegee by cash waxaa ka qabanaysaa meesha number ka bilaabanaya ayaad ka qabanaysaa right click shift plus shift bank ku aadi markaad bank ku aadiso leenka haddana soo dalbo kayda agteed ka qabo haddana ku aadi right click plus shift date-ka ku aadi haddana leenka lasoo qabso okay date-ka kasii qabo okay up to here gay it is easy okay insert u laabo shape link soo dalbo for the purpose ku aadi of agteed ku aadi markaad ku aadiso ila soco saan wax u qoraayo right click plus shift okay contact ku aadi agteeda haddana soo dalbo linka leh contactiga hoostiisa kasii qabo ku dhameey for the easy okay tag ayaan box hordhigeena boxkaas oo lagu qoraayo amountiga laga qaaday iyadoo hab number ah okay waxaan tegaynaa
insert ayaan tegaynaa, shape ayaan kasii dooranaynaa, rectangle ayaan sii dooranaynaa. Okay, halkan ayaad dhigaysaa, tag horteeda ayaad dhigaysaa. halkan waxa lagu qoraa amountiga laga qaado iyadoo number ah, amountiga laga qaado iyadoo number ayaa lagu qoraa. Okay, waxaan sameynaynaa meeshaan text box ayaan dhigaynaa. text box ka tag soo dalbane no. Okay, waxaa soo dalbanaysaa, waxaa kasoo dalbanaysaa insert ayaa tegaysaa, shape ayaa tegaysaa, then waxaa tegaysaa text box kan ayaa tegaysaa. wuxuu ku jiraa shapeska ayuu ku dhex jiraa. markaa ku dhufato automatically halkan hoose ayaa tegaysaa. halkan waxaan ku qoraynaa received by qofka lacagtaas qabtay ama receive gareeyay ayaan halkan ku sheegi doonaa. Okay, waxaa ka dhiganaysaa adiga farta, waxaa ka dhiganaysaa adiga 14 like that, bold ayaad ka dhigaysaa, waana kala reyn doonaa. Okay, markaa sidaas sameyso waxaa sameynaysaa xeer kor ayaad u qaadaysaa, markaa kor u qaado iska soo yareey. Okay, okay, leenka waxaa rabnaa oo text boxka inaan qarino, double click ku dheh. marka waxaa tegay meeshaan oo shape outline white ayaad ka dhigi doontaa. Okay, asi ayaan copy ka qabanaynaa. leenka ayaad macnaha leenka oo text boxka geesiisa ayaad click ku leedahay. marka soo ku noqdo right click ayaa qabanay, sorry control ayaad qabanaysaa. markaad control qabato waa ku aadinaa. markay ku soo baxdo control adoo hayo, مثلا هذا واحد حبحي لينك عن قرية سوري لينكان مكاساس دحل ugu dhufato leenka dhibicda ayaad dooranaysaa. markaad doorto saan ku noqdo control ayaad ku dhigaysaa. markaad ku dhigto control falaarta la raadinaya. marka falaarta markay plus sidaas ay noqoto right click la dul qabanaysaa. marka la dul qabato waa ku biisanay. Okay, inta waxa ku biisato waa weyneynaysaa, xogaa waa dheereynaysaa. Okay, inta waxa ku qoraysaa authorized signature. Okay, boxka wax yar weyneyne. Okay, boil ayaan ka dhigaynaa, so boil way not yes. Okay, marka sidaas sameyso, sorry you aan ka tagay sa automatic ku saxay. marka sidaan sameyso waxaa tegaysaa insert ayaa tegaysaa, shape ayaa dooranee, leenka ayaad soo dalbanaysaa. leenka dati aan ku meesha aan ku xariiqnaa soo dalbanaysaa, waa dul dhigaysaa. marka received by hadda shift lama qabanin. fiiri leenka markaa soo dalbato control ha kula cararin, control markaa qabato kadib shift raacsi, control plus shift leenka uu toosaa. hadda control plus shift aan dhahaa, sorry ka waan naga halaabay, waan soo dalbanaynaa mar kale. shape tag leen soo dalbo. Okay, right click markaa qabato shift qabo oo toosaa markaas leenka. markaa ka foqaysan shift ka foqin, right click ka foq kadib shift ka foq. that's cool. inuu ka qalocda laga yaabaa adoo مثلا right click shift isla hayo inaa aadiso macnaha mouse control ka inaa kor aadisa laga yaabaa. hadda shift ka foqdo automatic kor aada. Okay, asalin copy ka qaadanayna, click markaa ku dhahdo control qabo, plus kan u jeeda plus oo noqday. right click markaas qabo automatic inta dulgeey. markaa dulgeyso qabo dheeray, right click caadi shift la qaban. shift di la qabatid as dhan oo meesha dhan leenka dhan oo buuxina mujada oo ka dhax baxa. marka shift la qabanin. Okay, hadda waan sameynaa wad ujeedaa. halkaan waxaan soo gelin doonaa shape aan company-ga ama amaya aan ku magacaabayno warqadan inay tahay warqad lacag qabasho. Okay, tan ayaa dooranaysaa, rounded rectangle ayaa dooranaysaa. click markaa ku dhahdo then meeshan sare ayaad control ayaa qabanaysaa, dragging ayaad ku sameynaysaa, waa ku sawiraysaa. markaa ku sawirto then
colorka aynu bedelaynaa. colorka meelahana ka saxin, meelaha waa qaab daro waaye. fill tag, shape fill tag. marka colorka sidan ayaan ka dhiganaynaa ama sidan ayaan ka dhiganaynaa. cool. marka sidan ka dhigato outline ka tag, white ka dhig bes, ama outline ka sharaxaada u yeeli kartaa. xitaa outline ka san camal ayaad ka dhigan kartaa. marka waxaad sameynaysaa right click ayaa leedahay, add text ayaa dhexdiisa adoo jooga ayaa right click leedahay, dhexdiisa adoo jooga right click leedahay, add text ayaa leedahay. waxaad ku qoraysaa marka money capital ka dhigo, money receipt. control A dheh, control E dheh. waxaad tegaysaa home tag, home ayaad tegaysaa. markaa home tagto, okay, meel fiican ayuu nagu aadisan yahay, centerka ayuu nagu aadisan yahay. waxaad waaweyneenaysaa marka eedan ayaad kili ku dhihi kartaa, ama intaa ku qori kartaa, ama meeshaana furi kartaa numberka size-ka aad rabto, number of size-ka aad rabto. marka there's no problem, eedan ayaad taabanaysaa, hal ficilsiinaysaa. okay, maya waxay dib soo laabo, bold ka dhig, fartana white ayaan ka dhigaynaa si loo arko. marka warqadda aad ayuu qurux badnaatay, saad u jeedaan aad ayuu qurux badnaatay. company magaciisana waa kana iska power supply, so it is for example only. symbol lan ka wadaa xir saru qaaduli. okay, waxaa sameynaysaa halkan, waxaa soo dalbanaysaa insert ayaa tegaysaa, shape ayaa tegaysaa, rectangle soo dalbo. markaad doorato rectangle, inta ayaan sharxi doonaa. okay, macnaha mathalan saanu kaa noqon karaa. markuu saan kaa noqdo, falaarto waxaad taabanaysaa adiga scrollka oo leftiga taabo computerkaaga, dib ay u celinaysaa, ama adoo right click lahaya ayaa saan u xarey kartaa. that's all. okay, wax yara weyneyneynaa ilaa intaan keenaynaa. inta keenno color ayaan ku shubaynaa, matalan colorkan camal aan ka dhiganaa. haddana asaa copy ka qaada, ama rectangle kala soo dalbo sadan ugu wareeg. macnaha copy waxaan ugu qaadayo, waxaan rabaa size-kiisa laan rabaa, ma fahmino? copy aan ka qaadanayna, there's no problem. dul tag, control qabo, plus ay noqoto mujeedaa arrowga plus yara dul koray. marka waxaa sameynaya, waa wadaysaa, copy waan ka qaadnay, midkan ayaa wadaysaa, waa ku aadinaya, waa isku cabiraysaa. okay, midkan waxaan ka dhigaynaa guduud ayaan ka dhigaynaa. double click ku dheh, fill tag, guduud ka dhigaasina. that's all. hadda warqadii aad ayuu qurux badnaatay. warqadii waa la soo daabaca, waa la print gareynaa. warqadii hadhow formkii qofkii marka lacagta laga qaado, inta lagu qoraa, inta waxaa lagu qoraa date-ka laga qaaday, inta waxaa lagu qoraa lacagta amount-iga oo laga qaaday by invoice lagu qoraa, amount of tag, inta by cash. iyo hal mid aan ka tagnay, I'm so sorry, hal mid ayaan ka tagnay. meeshaan checkbox ayaan gelinaynaa. waxaa soo dalbanaysaa rectangle ayaa soo dalbanaya. wax yar intaa ku cabiranaysaa. markaa ku cabirato waa qaadee, halkan ayaad geyn doontaa. wax yar weyney. okay, checkboxkan by cash hadii loo qaaday, by cash tiga la saaraa. control le qabo, adoo dul joog, control qabo, copy waaye, right click qabo, wad marka copygiisa wadataa. that's all. double copy aan ka qaadnay. okay, wax yar soo celi. okay, leenka wax yar soo celi asina. okay, kan wax yar soo jiid, waa isku dheelitire. kan wax yar soo celi, kan wax yar soo jiid. that's all. marka checkboxyadan haddii by cash ama by bank haddii looga qaaday, inta waxaa lagu qoraa bank numberka, lagu qoraa bankiga magaciis, automatic date-ka maalinta laga qaaday lacagtaas oo laga shubay automatic. intana waxaa lagu qoraa sababta looga qaaday, intana contactska, inta lacagta laga qaaday oo waxaa lagu qoraa by in figure. matalan add text aan dhaho, laakiin computer laguma qoraayo, gacana lagu qoraa, warqad sana lagu soo daabacaa. $100 laga qaaday matalan, for example $100 ayaa laga qaaday.
mujeda sidaas ay lagu qori doonaa laakiin by computer lagu qoraayo by gacana lagu qoraa gacanta by qalina lagu qoraa okay markaad sidaan sameeyso waxaad samayn kartaa loogadaada ay ama loogada company-ga ayaa halkan dhigi kartaa مثلا sawirka ayaad soo gelinaysaa waxaad tagaysaa insert tag picture dooro markaad picture doorato automatically ani wuxuu yaalaa desktop-ka okay that's cool logo markaas soo loogada soo gasho waxaad leedahay loogada right click ku dul leedahay text wrapping ayaa tagay waxaad tagaysaa in front of the text okay position-kiisa ayuu kusoo laabtay waa yareynaysaa le waa yareynee loogada company-ga halkan ayaad dhigaysaa so it is beautiful marka sidaas ayaad loogada usoo gelinaysaa okay waxaan filaynaa muuqaalkan ka faa'iiday fadlan haddaa fahmi weyso ku cesho muuqaalka kama caajisayo mana kaa daalayo ku cesho waad samayn doontaa insha allah waxaa fahmi weysana qaybta commenteska inoogu soo qor insha allah waa walaalkiin naafaciska oo idin leh waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu